kulan lagu taageerayay dadaalka isku dayeed ee dawladda Soomaaliya ee gobolada Jubbooyinka ayaa lagu qabtay magaalada Columbus Ohio ee dalka Mareykanka iyadoo jaaliyada gobolada Jubbooyinka ee gobolka Ohio ay baaqiyo kala gadisan u direen dawladda iyo waliba maamulka gobolka Jubbada Hoose iminka ka taliya iyo waliba dadka deegaankaasi ka soo jeeda iyagoo ugu baaqay in xaaladda laga dhigo mid dadka deegaanku ay u dhan yihiin isla markaana deganaansho lagu soo dabaalo wax walba oo ummadda ka dhaxeeya waa kuwana dadkii ka hadlay oo aragtiyo kala duwan dhibanaya waxaa maanta Soomaaliya u iftiimay dawlad ay aqoonsadeen caalamka oo dhan waa aqoonsaday waxyaalaha lagu aqoonsadeen ay ka mid tahay inay Soomaaliya tahay qaran oo ay la siman tahay dawladda Kenya oo ay la siman tahay dawladda Ethiopia oo ay la siman tahay dawladda Sacuudiga oo ay la siman tahay dawladda Mareykanka taasoo waxay keentay in xitaa dawladda leeyahay waxaad soo galan kartaan hub aad isaga difaacdaan dadka nabadiidka ah haddaba dawladda haddii leeyahay adduunka baa aqoonsaday oo dadkeedu diido waa mushkil dadka Soomaaliyeed ee dawladdu taa waxa laga rabaa si ay dibka uga baxaan inay dawladdaas la shaqeeyaan si meel u gaarto dawlad noqon mayso hadii dadku aysan rabin markaan saaleeyahay qof Soomaali oo aan maanta dawlad u baahneen ma jiro aan been isu sheegin ama halkan la joogo ama xiriir qaxooto kala lagu jiro ama xamar la joogo ama hargeysa la joogo ama garow la joogo dawlad qaran uu dalku u baahan ilaahay baan idinku dhaarshay nimanka degan Kismaayo wada degan ma waxay u baahan yihiin maamul goboleed inay dhistaan mase nabad bay u baahan yihiin maanta idinkan su'aale nabad bay u baahan yihiin in la isu keenay u baahan yihiin in gacanta la isu geliyay u baahan yihiin taray u baahan yihiin isma rabaan waan ognahay kascad baan ognahay annagu ma diidanin maamul goboleed ummadaan kala midna laakiin waqti aan u helnay waxaan u soo jeedinaynaa wixii qaranku u soo jeeday inay qaataan waxa ummadda walaalahooda oo wali cadowgu haystana ay ogol yihiin ha qaateen waa meel Soomaaliyeed ma aha meel qabiil dabo keli mana aha meel qabiil keli oo ka talin karo waad ogtihiin oo kooxa qabsaday oo haysan jiray kuwa af qabiil ku haystay kuwa ururo ku haystay diimeed qolo ka keentay ma jirto waxa wax ka keeni kara oo intaas u dhaxaysa waa dawladna maanta waa jirtaa waxaa marka loo baahan yahay inaan halkaa xoog saarno oo ku taageerno in dawladdaas ay xal ka hesho nin kasta waxa weeye warnimo jamhad iyo dawladnimo isma qaado xilligii jamhadiinta waa laga gudbay dawladdu ha noolaato hana la taageero hana la shaqeyno insha Allah taala midda labaad waxa weeye meeshaan Jubbada Hoose dhib badan baa ka jira sida loo tilmaamay oo Soomaaliyeed baa wada degan ummaddu waxay u dhan tahay intay ka wada dhisanayso dawladda Soomaaliyeed maamulkeeda iyo gacan ku haynteedaba looga dambeeyo si loo badbaado oo dadka dhiigiisa loo kala dhowro waxa u baahan in aynu wada ogaano kulligeen inaan Soomaaliyu islayn inay qarankeedii burburin inayna hadda qarannimada diidanin in qarankeedii laga burburiyay in la isku laayay haddana loo diidan yahay inay qaran noqoto qof walba intaa waa inuu ku xiro maskaxdiisa hore Soomaali waxa la isugu diray qabiil diinteedii iyo wada dhalashadeedii iyo ehelnimadeedii intaba waxay ku ilowday qabiil Deeqsona Somali National TV Ohio